أخيرا كسر دوادا جرناليست كنا كلا عن تشوي عتي ميديا فضلا سبسكرايب كا يانا ما ركته إحنا الله صاروا يانا لقى بغيرين سيدا سلم مده أخبارتن ما رتقبينه إن مالين لها سي شير جريا أو قيبي قرالك waxaan ku bilaabaynaa maanta oo ay bishu tahay 7 bisha March 2022 qodobkeena koowaad wuxuu noqonayaa waxaan uga hadlaynaa siciidani oo dabcan ay soo qaatay hadii la guuran yahay 16 kursi oo klibkeena meesha ugu dambeysay oo ka ambaqaadayno ah 16 kursi kadib maaragtaa asagoo markii hore ka fuqay Maxamuud Diyaano hogaamiyaha ama taliyaha ciidanka BSF dabcan taa markuu ku jabay dagaalkii laguna idbiyay ayuu haddana maaragtaa fursad wuxuu u helay inuu maaragtaa 16 kursi uu ku bedesho inuu hogaanka nimankaas u dhiibo dabcan waa maaragtaa culaysi fara badan ayaa maaragtaa ka jiray halkaas waxaanu soo sheegnay sidaas la mid ah ninka la yiraahdo Professor Jurile inuu yiri maaragtaa ninkan aan isdhaafino isan maaragtaa kabtal khayarka ah ee Puntland ama maaragtaa nimanka Maxamuud Salaamaan la yiraahdo ee isku kabtabtaan ay maaragtay usana dhaafine dabcan 16 kursi iyo waxyaalo la mid ah oo soo qaadan doona waxa xusid mudan oo la yaab leh oo fajaca in ninka la yiraahdo maanta niman maaragtaa ayaga maaragtaa qoqal la shiraysay rag ninka wax garad maaragtaa far badan oo ninka la shirayay dani iyo Aaron Jamba inay hortiisa maaragtaa isku gacan qaadeen waa ceeb kale adoo madaxweynaha in maaragtaa hortaadii dagaal iyo maaragtaa dad la kuuriyay la isku tiriyo inay hortaada ka dhacdo waa ceeb iyo fadeexad dabcan halka maaragtaa xilbaanadu waa iska soo gabagaboobeen waxaan rabnaa marka qodobkeena ugu muhiimsan oo dalka wuxuu yahay in magaalada Garbaharey oo ah xarun deegaaneedka labaad ama deegaan doorashada labaad ee Jubbaland taasoo midda koowaad ah Kismaayo tan labaadna Garbaharey ku asteesneed xubinna ka ama qayb ka ahayd heshiiskii maaragtaa 17 September ee 2020 markii hore waxaan soo sheegnay ama aad ogtiinba in guddiyo loo diray oo guddigaas oo ah afarta maamul goboleed oo kale wasiiradooda arrimaha gudaha inay ka keenaan warbixin magaalada Garbaharey sidee tahay warbixinta taftar ay ra'iisul wasaaraha soo gudbiyay sanadkii hore 2022 bishii July iyagoo ku sheegay halka in doorasho lagu qaban karo amni tahay nidaamkoodu degsan yahay sidaas la mid ah waxa isagana xoojiyay nin maaragtaa ka socda booliska maaragtaa Amisomta u hadlay oo yiri halkan waa meel nabada anaga joogna dabcan booliis ay halkan la geeyay in doorasho lagu qaban karna ay sheegeen dadka deegaankana si cad ay u cadeeyeen isbuucii hore ayuu sidaas la mid asagoo in tiraya oo ku xumeynaya ninka la yiraahdo Roob la baahane farmaajo ayuu wuxuu yiri waxa maaragtaa magaalada waxaan u dirayaa guddi cusub ayuu doortay oo magacaabay guddigaas ayuu u diray meesha la yiraahdo Kismaayo way ka soo laabteen waxay ka wadaan dhagayno hadlayna wuxuu yiri horaan kugu sheegnay isagoo dhahaya meesha maalaha hoteelo maqaayada shaaha laga cabo maaragtaa maqaaxiyo wanaagsan oo cunno laga cuneeyo dabcan meesha cunno iyo shaahi midna loo tagi maayo waa dad xildhibaanadoodii deegaankoodii maaragtaa ka tirsanaya dadkii kuma tali lahaa dawladda dhexe xaq bayna u leeyihiin iyadoo taas la ogaayo haddana soo laabteen dadkii reer Gadana ilaa ay hadeertaan way ka gadoodsan yihiin guddiga iyo waxyaalaha ay soo wadaan iyo rooblaba gudoomiyaha gobolkana waa hadlay gudoomiyaha Garbaharey waa hadlay dabcan maaragtaa dadka bulshada oo dhan waa wada hadashay uqaal iyo dad waaweyn iyo dad waxgarad iyo aqoon-yahanba dal iyo dibad meesha jiraanba maaragtaa 16 kursi ay sade maaragtaa uu leeyahay beesha sade daarood ka tirsatahay in maaragtaa hadda la kuurin halka loogu qabto kuna codeeyaan maaragtaa deegaan doorashadooda maaragtaa loo madax baneeyo dabcan waxay ogtahay cid walbaba 16 kursi in maaragtaa iyagu ay qaadan doon oo farmaajo qaadan doon waxaan maaragtaa intaas raacinaynaa heshiisyo ayaa jira oo waxaan ognahay inuu hadda ka hor dhowr bilood ka hor aaday lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo uu tagay Axmed Geedanaar ninka la yiraahdo Jubbaland meedka oo yiraahdo meedkayga maaragtaa la soo galay oo wajiyada badan ee marna shabaabka marna xisbul islaamka marna dawladda sheegta marna Kenyaanka maaragtaa sheegta in maaragtaa u shaqeeyo ayaa maaragtaa mar labaad waxa la rajeynayaa inuu tago oo Axmed oo ninka la yiraahdo lafta gareen oo ku laabto halka asagoo maaragtaa dabcan markaan heshiisyada dhiilal ay soo gali karaan oo ah 16 kursi maaragtaa dhowr xabo inta laga siiyo
dabcan de ama xataa xubno dhiman oo baydhabo ku dhiman in xubno laga sii xataa mid iyo laba si halkaa loo fasaxo loogu maaragtay loogu heshiiyo dhiilashaas ayaa la rajaynayaa halkaa maaragtaa ninka la yidhaahdo lafta garan uu soo dhammeeyo dabcan lafta garan dad badan naawilayo oo ah nin de waxa weeyaan xubno 25% xubnaha golaha shacabka ama aqalka saraba ninkii soo doorto weeyaan oo hadda la guuray 69 xubnood ayuu gacanta ku hayaa sidaas la mid ah Axmedow waxyaalaha ninkaas uu maaragtaa uu dhugnu maaragtaa uu soo dhaweynayo oo ugu dhiganayo wax kala ma ahan maadaama danni uu madaxweyne rabo oo isaguna ninkaas uu yahay ninka 25% oo gacanta ku haya baarlamaanka Soomaaliya ayuu maaragtaa uu ku qasbay inuu soo dhaweeyo dabcan waxaan rajaynayaa in halka arinta dhinac u dhacdo safarkii farmaajada dabcan wuxuu ahaa safar guuleystay una sheega maaragtaa hadii la koro qadariintiina iyo tamiimka ninka la yiraahdo meesha madaxda ka amiirka ka ahna uu farmaajo usoo ballan qaado u yiri waliba uu yeeriyay oo dhigiisana ku soo dhibciyay inuu yahay balaan eegiisa balaan bigiisa balaan siigiisa ninka madaxweynaha u tartamayo Soomaaliya qadarkana maaragtaa ay soo fangareyn doonto dabcan wixii lacagaad hawlna lacag fara badan ay soo siisay haddana la rajaynayaa in lacag fara badan ay soo siiso oo ku tartamo oo malaayiin ah waxaan inta qodobkeena labaadan qayb qodobka dibadda aan ka taabanayna waxa weeyaan waxa la rajaynayaa maalmaha soo socda inay kulmaan wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda Ukraine inay kulmaan labadan nin oo dabcan de maaragtaa kulan foolka fool la yeesho awal waxa ergooyinka mid kamid ah xataa oo Ruushka u dhashay waa waxaad ogtiin in la dilay oo maaragtaa la shirqoolay sidaasna uu ku maqan yahay marka kulamadaas ayaa wax ka soo bixi doona aan sidaan rajaynayno dabcan magaalada Kiev maanta qax fara badan iyo barakac fara badan ayaa ka jiray dad badan rag iyo dumarba waa kacayeen inkastoo ragga maaragtaa da ahaan ilaa 16 ilaa 60 maaragtaa da'adooda maaragtaa ay jirto is u dhaxayso in maaragtaa dalka ay difaacaan loogu baaqay oo de lagu qasbayo dad badan ayaa halka ka barakacaya waa la qaxaya dadkii maaragtaa dawladda Koonfur Yurubtii ayay sii marayaan akhyaaray clipkeena maanta halkan ayaan qodobanaynaa maanta ku maaragtaa ku soo gabagabeynaa fadlan si share gareeya salaam